السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قالي وإن سلامي دمان ميل والبؤات دنيا كجوكتين فضلا هدي أكو عصبتها جنال كينا هدى بنت مختار سبسكرايب لايك شير كومنت إنه وعاوي عد سواي قصب معها وما هتسنتهين هذا إذن كوكو مهد علينا أصحابتي إذا قالي ولا ليه الله إذن بركة إلهي ها إذن حفظه غير فربضان الله إذن سيكون سبسكرايب إيجارسيسين وكم هتسنتين وحرجينا انتاس إن كبضان إنا إيجارسيسين إن شاء الله استوديو غانجيرو مسكين كي قولك جيفك كنا حيالينا إيجا بدشين موبيل كان كاميرا إيجا بدشين انتا هاد إيجارسيسين وكم هتسنتين إن كبضان لوا إذن كرجينا sida iiga barateen sheekooyinkii xiisaha lahaa qisooyinkii caaw waxaan rabaa sheeko inaan nooga sheekeeyo qiso gabar ku dhacday gabar jidda joogta ila soo xiriirtay WhatsApp igala soo hadashay waxay dhahday walaalay qiso igu dhacday laakiin magacayga ma raba inaan ka sheegtid ana waxaa jeclaystay yani gabadhaas qisada iiga soo sheekaysay inaan idinka idin la wadaago waxay dhahday anoo yar oo 15 jir ee aabahay Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay laba cunuga iga yaray dhahday hooyadayna gabar yar waay yani anaa curad u ah marka waxay dhahday aabahay markii la dilay anaga aabahay le wax cid saboola ahayn aabahay le noo dhaqdhaqaaqa ilaahay u naxariistay waxba ma haysanin marka gabdha oo hooyaday asxaab ay yihiin oo soo tahriibayo ay waxay dhahday hooyaday gabadhan ii wada marka dhul yar aabahay nooga dhintay tir oo banaan oo basiib ah aabahay nooga dhintay tir waxay tir dhulkaas u gada gabadhan hore igu kaxeeya marka waxay dhaheen anaga ku saacideyn waxba dhulka hagadin insha Allah markay Sacuudiga aan geeyna ee shaqaysata lacagta lagu geey iska gudeen okay waxay tiri ani waa soo baxay gabdhihii soo raacay Sacuudiga imaaday Jidda la keenay waxay tiri shaqo jiifa la isaaray shaqadii aan waxa ka soo shaqeeyay tiri muddo 2 sano yani halkii shaqo ma ka shaqeynaynin laakiin markaan ka soo dago bil ii soo dhamaatabo mid kale la isaaray shaqo ka soo hooyashay waligay kama shaqeynay tiri 2 sano anoo shaqeynayo hooyaday waxay dhahday tiri hooyo أنا كساعداي يعني هو إذا وحنا قبل قاضي ترينا أقون تلا كوريو أنا كساعداي أنا هنا سعودي إيجي محلها الما هو إسلوه ذكرني ناي مركب حين هذا هو إذا جوكتو هو إذا الما أو صوت تقدر تحيط هو إذا الما أو صوت تقنا أنا يعني ونسيب هناك هو إذا وسوى ذي التهريب أنكو كانه جدا إماته الحمد لله هو إذا شقات صارين هذا شقادي هل صنع هل عد أسوي شقيني ما شاء الله تبارك الرحمن waxay tiri ma sha Allah wax naga halaysan malaha markii dambe waxaan go'aansanay tiri aniga deyntii waa iska gudal igu keenay waxaan go'aansanay dhahday anigana inaan dhulkii banaanay oo aabahay ka dhintay Ilaahay u naxariistay inaan dhiso iyadana ay ilmaha biisho inta wax ka qabsanayna aan wada shaqeysano hooyaday hal sana haday shaqeyso waxay tiri jawigii fahantay markii hore aniga qadaamooyina la deganaay hooyaday markaan keenay qolaan degnay dhahday gabdhaan qolka degnay gabdhihii marka aan qol ka degnay aniga hooyaday kaliya qolkeena aad degnaynay tiri korontadeen dhiibaneynay jaarkeena baxsaneynay ma sha Allah dad isku toosana ahayn waxay dhahday muddo markay hooyaday shaqo jiif ka soo shaqeysay jawiga ay fahamtay waxay dhahashay shaqo oo laga soo hooyanayo laba shaqo oo laga soo hooyanayo midna subaxii la galaayo midna casirkii la galaayo hooyaday way iska dhaaftay tiri shaqo jiif laakiin aniga sideedaba shaqadeydii iska saaranay cidda hadda ka soo dagay cid kale oo jiif ilaa raacay waxay dhahday 3 sano camal marka aniga aan joogo hooyadayna sanad iyo xoogaa ay joogto ana 3 sano iyo xoogaa aan joogo waxay dhahday 19 jir meelahaas ahay waxa isbaranay tiri wiila isbaranay gabdhaha oo guriga isla deganahay wiilay qaraabo yihiin oo guriga imaada meesha isku baranay telefoon kala qaadanay wiilkii marka maqanaay telefoon ku sheekaysan jirnay marka imaado oo ijaasada u imaadaan isbuuceenkii mar soo dagay dhahday labada isbuuc hal mar imaanay waxay dhahday halka mar imaadana oo ii imaanay hooyaday le aniga aan saaxiib lahay hatta waxay dhahday gabdhihii aniga i keeneen waa kala tageen qaar waa la qabtay qaar way guursadeen qaar maxaa la isheeg xaafad kale u guureen yani dad cusub leh aan la degnay dhahday qof aan aqaano oo amaanta aan isu dhownahay oo saaxiib la ahay ma jirto waxay dhahday hooyaday le wax walba u sheeganay marka wiilkaan ina isla socono hooyaday waa u sheegay oo aan sukaasano habeenka imaatida ku imaaday dhahday marka waxay tiri hooyaday ما شاء الله تبارك الرحمن هبينكي مركو إيه إمادو بنانكي آديسي أما قولك قبلها كالتي آديسي مالميه دم وحيتر الشام بلود مركا ويلك إسلسو عني مالميه دم ويدي تصرفات كذا أو إسبدلي عركي مدة يعني مالكو إيه إمادو ويلك أما أنيك عاشقاتك صدقو ويلك أو إيه إمادو هو يدي وحيتر عمتاني نوكيني قحو وحلو وبسكت
وانو سو غلي احيانا waxay tiri garab saar la'aan inoo imaanay waa is ilooba ay leedahay aniga waxaan isdhahay tiri hooyada xaqa qaldan marka maalin waxaan dhahay tiri hooy adi xaq kugu dhacay adiga maalintii markii aan wiilka isbaranayna banaanka noogu bixi jirtay hadda maxay dhaad kul shaway waa noo soo noqonay qaxwo isha iyo waxa noo keenay maxaa dhacay wiilka marti waa shan bilood marti ma ahayn miya hooyo hadda ma oo maxaa la marti yahay على كل حال waxay tiri sida idoo sheekada ay tahay aan wiilkii waxaan dhahay niyo maxaa qaldan markaas oo ilaa wax qaldan ma lahane marmar wuxuu dhahay aniga ii sheeg hooyada waa isfahanay marmar guriga waa imaada waa isla sheekaysanaa anoo maqama guriga imaata ha ayaamihii dambeeta waxay dhahday waxaan ba arkay wiilka hadaan soo wac telefoon ma iga qabanayo marka waxay dhahday ilaahay amarkiis maalin maalmaha kamid ah aniga hooyaday waxay dhahday shaqada bisha markay ii soo dhamaato oo aan ka soo dago laba maalin hadaan joogo walwala qabanayo ana waxaan ka balan qaaday inaan dhiso dhulkii banaanay shaqa male miya shaqa ma soo galin miya qadka gabartan shaqa iigu keena ay leedahay ma fahantay marka waxay tiri maalin maalmaha kamid ah anoo shaqada joogo aan soo wacay waana soo socday tiri haddana maxaa lahaa ii sheeg waxaan rabay guriga imaana inaan dhaho laakiin waxaa is dhahay markoo telefoonka iga qabaa waxaa is dhahay maadaama oo ku dhahay hooyada marmar waa u tagaa waa soo salaamaa asoo guriga jooga ama tagtaa waaba sidii oo asagoo guriga jooga imaaday dhahday hey telefoonka waxay iga qaban weyso maya haddaa arkay telefoonka macnaha markaa inta soo galaa arkay laakiin waa ogaa inaa imaanaysa okay waxay dhahday maalmihii dambeeta waxaa igu dhacayay tiri shakiya ay galay marka waxay tiri ciddii aan u shaqaynaayo ciddaas dhowr bilood aan u shaqeeyay ciddii aan u shaqaynaayo waxay dhaheen anagu waa saafireynaa ma fahantay waa baxeynaa waxaa aadaynaa yacni magaalo kale aadaynaa bilaa laga yaabaa inaan maqnaano markaa imaano aan kusoo wacanaynaa noo imo okay waxay dhahday ma u sheegin marka hooyada in la isoo buriyo ma u sheegin telefoon haddaa ugu sheegay isla markii waxay tiri guriga intaan soo gaarinay gabdhaha adduunka intay wacday leedahay gabartii waa lasoo buriyay shaqa iigu raadiyay anigana shakiyaaba i galay oo hooyada iyo ninkii aan ka shakisanahay marka waxay tiri waxaa imaaday anoo u sheeginaa guriga imaaday albaabkaa iska soo furay waxaa imaaday tiri mufaajacada adduunka ugu weyneed oo iga soo horeyso waxaa imaaday dhahday laba sariira qol noo taala kursiyaa dhexda yaalo ninkiioo kursiga ku fadhiyo hooyadayoo garbasaar la-aan ah oo maxaa la dhahaa sariir ku fadhido ayaga xataa waa isku naxeenay tiri markay ay arkeen marka aniga waxay dhahday horta markayga hore hooyada iyo ninkii isku qabanay ujeedadayda ma ahaynay tiri ujeedadayda waxay ahayd haddaa hooyadaa hadda wacdid oo tiraad cid way isoo buriyeen haddeertaana adoo nasan inay shaqo kale kuu raadinayhee horta u tag marka u tagtid kadib u sheeg waxay dhahday markaan soo galay gurigii naxteen waaba anaa isku naxay ayagana waa isku naxeen maxaa kugu dhacay hooya maxaa kugu dhacay garbasaar la-aanta u tahay ay soo faktay dhahday markaasay tiri adi waxaa garbasaar la-aanta anigu ahay iska dhaaf adi maxaa kugu dhacay markaasay waxay tiri hooy ciddii ay soo buriyeen ciddii ay kusoo buriyeen see kusoo buriyeen maxaa ka hadlaysa maxaa war waxaa haleey ma lehe hooyoy aniga ciddii waxay dhaheen waa saafiraynaa xeeda ma koolabir baa igula dhagan cidda anig maya khalaas waxa jira ii sheega waxa jira annagaa kuu sheegay inay fadhiiso aniga waxay tiri tuhun waa igu taagnaay markeygi hore yacni waxaa yani waa shashakinaayay laakiin mar walba waxaa isdhahay shaydaankayo kuu hadline hooyadaa ma ah nin aad shukaansanaysa damcayso aa isdhahaaya marka waxay dhahday waxay tiri fadhiiso wixii jira annagaa kuu sheegayna idinka labadiina ahaa labadayna kuu sheegayna marka waxay dhahday saan markii aan u fadhiistay waxay tiri hooyoy waxaan rabay inaan kuu sheego aniga iyo wiilka is-shukaansatiin waa is rabnaa inaa isguursanaan rabnaa wiilka aniga shukaansadaa hooyoy haa bismillaahi raxmaan raxiim waxay dhahday niyaddan waxaa iska dhahay hooyadaa ninka adi shukaansanaysid waa rabaa ku dhahoyso yacni maa fii rijaal khayro yacni adduunyada dhan nin kalaba ma joogo hooya xaa kaa qaldan naxtin aniga horta waxay tiri waa isku dhex dhacay markayga horena cabaayadda waa iigu jirtay dhahda animaba iska siibinbo markaa isku arkay oo aan ninkii guriga ugu imaado hooyadayo garbasaar la-aan oo ani dhan isku dadarsamay oo ciddi waa isoo buriyeen hooyo ninkaa muxuu ka sheegaa inta maxaa idinku dhacay maxaa hooyo maxaa garbasaar la-aan kaa dhiga waxay tiri halahaas markay tiri aniga iyo ninkan waa is rabnaa hooyoy
لأنه مدتي وجدا بيس وحيد تري نينكي وايجا قاب صدق تليفون ما يجا قبنا يصير هرم إلى هذا مرات وحيد هذا أحيانا وسود دقة ما إيمانايو أنا توهم كي شكي mar igu weynay tiri shakigii oo mar walba waa cood bilaysana shaydaanka waa iska naara waxaan leeyahay hooyada nina adiga aad rabtido ay ogtahay inaad shukaansanaysid oo mar walba kuu imaanayo maxaa lahaa isheeg ma damceysee anoo isdhaha iscilcelinayo maanta wixii oo dhanba waadaxa la iga dhigo waxaa lay dhahay hooye miya anigii ninkan waa israbnaa waa isfahanay gabar yaraa tahay mustaqbalkaaga gadaamkaaga waaye maxaa la dhahaa isheeg anigii wiilkan guuraan ku ballanay intaa lagu kufay habarkuuley xagga ka dhacday saanay ahayd waa yaabay dhahday aniga waxay dhahday cabaayada iigu jirtay ma iska siibin boorsada garabka dhulkay taale saana usoo qabtay saana u gashtay dhahday garabkaan gashtay waana baxay albaabkaan ka baxay marka waxaa jirtay tiri gabar xoogaa oo ii sheeg aniga da-aadeyda ah oo guriga dhinac ka degan laakiin shaqo kasoo hooyasho ka shaqayso oo gabdho kale la degan gabdhaha la deganna shaqo jiifay jiraan gabadhaas shaqay ku maqneeday tiri ilida haddaan ka baxay waa iska socday tiri ani isla markaan baxay hooyaday gabadhii wacday waxay tiri saanaa dhacday weblaayaa soo degtay saanaana dhacday ee la kulantay marka wac meelay aada ma aqaanee iguna soo warceli waxay tiri telefoonkayga woo dhacooya mana maqlooye waa iska socdaa muddo yacni markaa cabaar aan socday meel u socdana aana aqoonin waxay tiri waxaan ku naxay telefoonka dhicitaankiisa malaha 100 miskool waa ku taala waa qarxir waa telefoonka sida loo soo wacay waxay dhahday telefoonkii aan qabtay yaa waay ma dhiinay tir telefoonkii ma fiirinin yaa waay xataa ma dhiin telefoonkii aan qabtay halow meeshaa taagan tahay meeshaa socotid istaag ha sii soconin soo noqo qof ii jeeda camal adi ma ii jeedaa waay yaana waay adig war aniga waay heblaayo waaye kuuma jeediye inaad socotidaa ogahay hooyada waa iska baxday ku tiriye maxaa lahayd guriga u noqo waa ku imaana hadda ku imaana shaqaan joogaa laakiin shaqada ma soo dhammaynaya waa ku imaana guriga tag waa laabtay dhahday ilaa guriga aan ka tago oo aan ka galo gabarta qadka iigu jirtay marka waxay tiri qolkeedaan galay qolka maba gelinbo ninkii maba ila hadlinba hooyadayli ani saas ila hadashay oo aan ka naxay ninkii maba ila hadlinba qolkeedaan galay gabadhii habartay soo wacday waxay tiri way imaata qolkay ku jirtaa qolka haddaan galay ninkii ayuu kusoo galay ninkii ile maba bixinbo markii arrinta la ii sheegay ninkii ayuu kusoo galay waxay dhahay walaalay waa ka xumahay iga raalli noqo maxaa la dhahaa isheeg way dhacdaa wax walba nasiib waaye anigii hooyada waa isfahnay intaa maqneedaa marmar aan guriga imaanayay aniga iyada waa sheekaysanay aniga waaba yaabanay tiri ninka wuxuu sheegaya mukhaygaba ma joogay dhahday maskaxdeeda maba fadhidabo waa iska hadlooya ninka laakiin aniga maba dhegaysanooyo calaa kulli xaal warkiisii oo dhammaysta inaan u jawaabin markuu arkay woo iska kacay marka waxay tiri muddaa hadda laga joogaa aniga hadda waxay tiri 21 sanaan jiraa markaas 19 jira ahay muddaa laga joogaa hooyaday marka aniga qolkii maba ku noqonay tiri alaabteydii waxaygaa la iiga soo bixiyey gabadhiyan dhinac kala degay hooyaday waa ii imaatay waxay tiri hooyo adoon raalli ka ahayn inaan guursado ma rabo wixiina way dhaceen raallina ahow inaan waxaan rabaa adoon raalli ka ahayn ninkii aan isguursano waxay tiri sahal iyo suhuule iiga dhamaysa haye hooye hooyaday waa iska hadlee aniga waxay tiri waa iska ceeshooya haddaan rabo shaqo waa aadaa marmar waxay tiri cidda carabta anoo la joogaa finjaalayaasha ee qaxwada ku cabaan iyo farkeetayaalka iyo mindiyaalka intaan dhaqo aruuriya suwaalta ku shubaay dhahda naagta carabta waxay leedahay ma waalata adiga shfiig suwaalta waxaa ugu ridaya aqraadkan waa la isticmaalaahe maba ogiye dhahday aniga muqeyga waxay dhahday hadda meeqa sanaa laga joogaa 2 sano aa laga joogaa 2 sano caadi ma iye dhahday laakiin gabar iyo hooyadeedaan nahay intee ku kala go-eynaa waxay dhahday hooyaday qolkiilay dhinac ka degtay ninkiiyay guursatay hadda wiilay u dhashay ninkiiyayba wiil u dhashay marmar waxaan isdhahayay tiri kubri intaa kortay ma iska soo tuurtaa ma isdishaa marmar waxaan dhahayay tiri maba istaahilanine waxaasoo dhane iska dhaaf haddane maxaa dhaa mindidaada kumuduwaa hooyadaa ninkii kaa qaatay ceeb iyo lama arkaa maxaa ku hadlay wallaahi qofaa u sheega male xataa gabdhihii oo maxaa dhahaa nala deganaayeen gabartii nala deganeen dad ma isun u sheegin gabdhihii nala deganaayeen way ogaadeen wixii adigu labadoo beriyaa nala wadwaday wixii waa la dhigay dadkii hadda caadiyay la tahay noloshii way la qabsadeen aniga waxaan sameeyo ma aqaani ilaa iyo hadda walaalay taasaa igu dhacday ila tali maxaan sameeyaa
marka horta ugu horeysa aniga walaashay macaan gabadhaydoo kalaa tahay aniga horta walaashayaan ku dhihin gabadhaydoo kaleetaa tahay marka ugu horeyso hooyadaa oo jabiibe ah oo shukulaatiine ah oo yariis ah maxaa nin ugu ag shukaansanay nin meelaha caamka ee maala tagtid xadiiqooyinka dadka dhanaa joogaan xadiiqooyinka oo ku sheekaystaan haye qabashaa kacabsanaya sharci malid sacuudigaa joogtaa maahano telefoona ku dhamaysanaysiin maalinkii oo meeqaa intay telefoon iska barteen ayagoon is arkin markay calaf hadday isku yeeshaan markay ugu horrey markay isguursadaan kadib ama la isku meheriyey kadib is arkeen telefoona ku dhamaysan laheedeen maya maahano teeda kaleeto wayba dhacdayba xaafadda waa laysla wada degan yahay gabdhaha kaleeto qolalkooda xataa qolka tuugi leheed adhiilaad intaa ninkaan kala sheekaysana qolkiia hooyadaa oo dhalinyaro oo yariis oo aniga xataa iga sii yar ninka nin qadar ahoo kala kacsan ah ula imaanaya saaxiibay adaa ila qaldan waagii hore waxaa lais dhihi jira moogtahay jirka dhiigow hadda jagaan kugu ahay waayo hooyadaa ninka jag ku noqday adiga nuunaa noqota baby eh marka aniga waxaan ku dhihi lahay horta marka ugu horeyso ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen marka waxaa waaye waxaa ku fikirtay inaa isdishid taas dembiyay kugu tahay tan labaad xoog iyo caafimaada ilaahay ku siiyey waa aadna waa u yartahay waana qurux badan tahay ma fahamtay intaba ma aheen horta inaa isdisho shaqsi aad isku dishid iska dhaafe dunya maa tastaahil in aad shaqsi kaleeto farxadaada xataa ku xirtid farxadaada gacantaaday ku jirtaa mustaqbalkaaga guddaamkaaga waaye nin ka fiican ka qurux badan ka akhlaaq wanaagsanaa helay nin damcay hooyada ay adiga isku kiin damcayne waxaan jirin waaye ma fahamtay laakiin haddeertaan ani waxaan ku dhihi lahay oo aan kuu sheegaa hooyada ay adig kalama go-din ballantaa ka qaaday u oofi dhulki dhis ilmahaas agoonta walaalahayaa ku ceeshaayo guriga ma fahamte saa ilmaha ula korin uga ballan qaaday inaa ula korisidna ula kori hooyadaa garabkeeda ahaaw waxaana qadar allahu maashaa facal qadar waaye ilaahay amarkiisay ku dhacday in hooyadaa ay ninkii guursato aniga hooyadaa ha ila qaldan waxay igula qaldan tahay nin weji male kir haddaa dhahdid waa baxaa dameer camal waay ma fahamtay haddoo iyada weji ka heli laheen oo daldaloolo oo kasoo gala iyada ka heli laheen iska xirxiri laheed ee iska dhigi laheed ninkii gabadheeda shukaansanaya hadday ka dhigi laheed oo gabadheeda raba hadday ka dhigi laheed wallahi meeloo kasoo geli lahay male laakiin haddii oo maxaa la dhahaa sheeg qaxwo keeno iyo garbasaar la-aan iyo filin iyo sheekada ay tahay ay ka bilaabatay hooyadaa yakti maadaama quruxley maxaa baaqule ay tahay iyadaa jidkaas falatay jidka ninka iyadaa maxaa la soo jiidatayoo ninka jeclaatay marka hore ama rabootay ama oo weji ka heloo shukaansatay ma fahantay marka walaalay gabadhaydiyey waxaan ku dhihi lahay aniga dunya maa tastaahil inaa qof madaxiisa u xanaaqdid qof madaxiisa inaa aa isku dishid qof madaxiisa inaa aa farxadaada ku xirtid waxaasoo dhan ma istaahisho adduunyada way qurux badan tahay noloshaane waxay u baahan tahay yacni nolosha way qurux badan tahay sax waayo nicmooyinka ilaahayna siiyey maaragtay inaa ilaahay ugu shukrino 2 ragcoo sunno duko waxaa dhahdaa alxamdulilaahi calaa nicma ilaahu adaa mahadda iskale ilaahu adaa noloshaan quruxda badan isiiyey adduunkan quruxda badan maxaa laga yaabaa qeyrkaa inuu caafimaad haysanin qeyrkaa inuu mar hore dhintay qeyrkaa inuu maxaa lahaa isheeg xooga ku shaqaysto oo haysanin marka nicmada ilaahayna siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalahayga qaaliga idinkana waxaa idin leeyahay hataa ka hesheen videoga subscribe like share comment nagu caawi codsi waaye qasab maaha aadna waa idinkugu mahad celinaa kunka subscribe aa i gaarsiiseen إن شاء الله أنت إنك بدنا وإنك فلا هذا وما هتسنتين